الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفسير قرآن كريم سورة الأنعام آيات بقول طبعا إكو. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ولو قر أننا أنغو نزلنا هدن دجنو إليهم أي حقوضة الملائكة ملائكة نسود دجنو وكلمهم الموتى كودنت أي لحظان وحشرنا أن كل منه عليهم دشوضة كل شيء كل أنكو كل منه قبولا حالويها شيء كسا جماعة ما كانوا مأيان أهان كوان ليؤمنوا كوار رمايا ما أهان انت هدي الله سمايا حتى إلا أن يشاء الله الإن أضان مؤغيه ولكن أكثرهم حسيا شبادي قوضا يجهلون وكو جاهلين ملائكة هدي الله سودجيو أمواد دمت الله صنع ليو وحكستا كوح لو كانوا معجزة ورمايا لدوم الرمينيان إلى الله أضانه إذن ميشان رير مكالي مبرمينيان إنو الله دونه مؤغيه وحي كمتها كلمة نوعا وكلا كلمدان oo kale waxay ka mid tahay kelmadaha la dhaho min idlaaq al-aam ma'a iradati al-khaas hadda reer maka sin rumaynaya inuu alla doono ma ogi ayaa leeyri rumayn la'aantaas oo bataatana waa intu alla ku ogaaday inay ku dhimanayeen gaalnimo ama inta kale way rumeeyeenba lianuna markii la qabsaday toban iyo laba waxsaas oo fakaday ma ogi inta kale way rumeeyeen marka rumayn la'aanta lagu adkaynaayo waa intii alla uu ogaado inayna rumaynaynin walow annana anagu nazalnaa haddaan dejinno ilayhim ayaga xaggooda almalaa'ikata malaa'igta haddaan u soo dejinno oo wakallamahum almawtaa kuwii dhintay ay la hadlaan waxasharna aan u kulmino haddana calayhim dushooda كل شيء كل أن أكل منه قبلا حالو ياهي فوجا جماعة ما كانوا ما أين أهان ليؤمنوا كورهماية إلا أن يشاء الله الإن أضانوا مؤغيه ولكن أكثرهم هسيا شباد غوضة يجهلون ويكجايلين حال داس وكذلك سدا سيان جعلنا ويالني لكل نبي كستابة عدوا عدو أيان ويالني شياطين الإنس بني آدم شياطين تيسان ويالني والجن جنك شياطين تيس أيان ويالني يوحي السوء وبحيونايو بعضهم قاركوضا إلى بعض قاركالي زخرف القول هذا المتكيسة لزيزيني لطوبي وبحيونايو غرورا داقيت إكاد دراديدا أي وحيونايا قارب كله إن إزدغاني ربان قاربا لدغايا هذا الدوبنا لو شيغاي أو بينا سيدا أديغبا هير ماك دحدودا أن ويالناي من عدوة أي نبي كستابا تدكيس عدوة لو دحدغاي امتحان ولو شاء ربك هدو دوني لها إنين سيدا يلين ما فعلوه ما ينفعلين إذا وحال دوني إرادة كونك أهيد أي وحي كل عضي نمن كاساس إني سميان شيادين تاس إني سميان لكن هدي تاس أي جير لهن أوصن القدر لهن ما إني سمين كريم با فذر كتك هم أيغا فذرهم أيغاس كتك إيوا ما يفترون وحي بين أبو ريان افتره ذي أيغا با إسكراف افتره ذي إيوه فذرهم معناها إسكراف وأيغا إيو افتره هذا بحشب كده
wamaa yaftaruuna fadarhum ay ka tag iyo wamaagii yaftaruuna ay been abuuranayaan. idan nabiyadii horeba saas oo kala lagu hayay way dulqaateen, adna dulqaado way. walitasqaa maxay ahayd kolka hore yuuxii bacduhum ilaa bacdin guruuran, yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruuran. hadda zukhrufa alqawli maxay ka rabaan meesha? walitasqaa iyo inay u dhegdhigto ilayhi qolkaas xaggiisa af'idatu aladiina kuwii quluubtooda inay u dhegdhigtoy qaadato ay rabaan, kuwaasoo laa yu'minuun aan rumaysneen bilaakhirati aakhir aan rumaysneen. iyo haddana waliyardawuhu inay ku qancaan daraaddeeday saas u yeelayaan. iyo haddana waliyaqtarifuu inay kasbadaan maa shayga hum ayagaba muqtarifuun ay kuwa kasbada. muraadka ayag ay leeyihiin awalan guruuran way, ثانيا litasqaa, ثالثا walitardow. intaas dana ay isku wataan. afa kayrallaa alla kayrkiisa mayaan abtaqii dalbaya. aayaddan waxay soo degtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nimankan ay isgeli waayeen reer maka yaa waxay dhaheen waxaad noo keentaa qofna dhexdhexaadiya noo keen, qofna dhexdhexaadiya noo keen. markaasuu nabigunu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaah unbaa dhexdhexaadiya noo ah. afa kayrallah alla kayrkiisa mayaan abtaqii dalbaya xakaman asoo garsoora ah, wahuwa asagoo alladii uu yahay, wahuwa xaal asagana alladii allagii uu yahay alxaas anzala dejiyey ilaykum xaggiina alkitaaba kitaab uu soo dejiyey mufasalan asoo kala dhigdhigan. ilaahay kitaabka qur'aanka soo deji asoo joogo oo xaya mayan kheyr doonanaya maya. waaladiina duulkii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaab aan siinay oo towraadii injiil aan siinay yaclamuuna waxay ogyihiin annahu qur'aanka munazalun mid la dejiyey inuu yahay munazalun min rabbika rabbiga xaggiisa mid laga soo dejiyey inuu yahay bilxaqi garna lagu soo dejiyey. saasay ogyihiin ahlu towreed ahlu injiil kuwooda xaqa raba waxay ogyihiin qur'aankan min allahi inuu ka yimid uuna dhab yahay. falaa takuunanna rasuulallah ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo ha ka mid noqon. watamad way taam ahaatay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa way taam ahaatay sidqan runnimo ay ku taam noqotay iwa cadalan cadaaladba. kelimad maxay tahay? kutubta la soo dejiye kulligeeda waa kutubta la soo dejiyey kulligeeda waa. ilaa waxaan soo marnay huwa aladii anzala ilaykum alkitaaba. idan watamad kalimatu rabbika taasay ishaaraysaa sidqan wa cadla. laa mubadila qof bedeli karo ma jiro likalimaatihi alle kelimaadkiisa. kutubta alla soo dejiyey xukumku ku soo dejiyey qofna ma bedeli karo. wahuwa alleh assamiicu alla maqlo wax kasta alcaliimu og. wa in tudic haddaad yeesho agtara man duulka ugu badan fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday yudiluuka way ku luminayaan can sabiilillaah alla jidkiisay kaa luminayaan. idan dadka adduunku ku nool agtarkooda waa baadi. warkooda haddaad yeeshaan way ku baadiyeynayaan. in yatabicuuna ey maa yatabicuuna ma raacan ila dana mala awaal ma ogiye. wa in hum ayagaas ma aha ilaa yakhrusuun kuwa been sheegay in way bes wax kale ma ah been unbay quutaan. ina rabbaka rabbiga rasuulallow ina rabbaka rabbiga huwa rabbiga ay aclamu ogaal badan man qofu ogaal badan yahay yadilu lumayo can sabiilihi jidkiis ku lumayo. wahuwa alleh aclamu alla ogaal badan waa bilmuhtadiina kuwa hanuunsan ee dadkan hanuuniya al-ad og waaye. yaa hanuunsan oo dad hanuuni adiga waa. fakuluu cuna dad yahow mimaagi xaggay ka cuna dukira ismullah alla magaciis la sheegay calayh dushiis lagu sheegay cuna kaa xaggii ka cuna. in kuntum haddaad tihiin
biaayaatihi alla aayadiisa mu'miniina kuwa rumaysan aad tihiin aayadda dad rumaysan tihiin al ismigiisa sheyga lagu biray cuna wamaa lakum maxaa idin helay anlaa ta'kuluu idnan cunaynin mimaagii xaggiisa idnan ka cunaynin dukira smullah alla magaciisa lagu sheegay calayhi dooshiisa lagu sheegay waqad xaal fasalakum allana waqad xaal fasalakum allana uu idin kala dhigdhigay lakum idinka maa sheegii xarama uu xarimay calaykum dushiina uu ka xarimay oo xurrimad calaykum lmayta iyo aada loogu faahfaahiyey idinka wixii xalaalay wixii xaaraamay idinkala caddeeyey maxaa idinku wata inaad cuntaan wuxuusan alle ismigiisa lagu dul xusin shay alle ismigiisa aan lagu dul sheegin inaad cuntaan maxaa idinku wata waayahay waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa maa shay ma ogiye aad cunaysaan udirirtum laydin dhibaato geliyey ilaahay isaga xaggiisa macnaa ayaga waxaa looga noogay baktiga waxay dhaheen allaa dilay xoola aad biraysaan idinkaa dilay alle wuxuu dilay ayaan cunnaa waxaad birayseen oo disheen ma rabno markaasaa la yidhi shayga bani aadanka uu dilay oo muslimiinta ah ismiga alla lagu bireeyo cuna shaygaas iska dhintay baktigii ha u dhowaanin markaasoo dhan ilaa alle gacantiisa wuxuu asaga bireeyaan rabnaa taasa marka aad iyo aad ay ugu adkaade wa ina kathiiran in badan la yudiluuna way lumayaan biahwaa'ihim rabitaankooday ku lumayaan bikayri cilmin ogaan la-aanay lumayaan ina rabbaka rabbiga rasuulallow huwa rabbiga aclamu allih og waay bilmuctadiin kuwa xadgudba oo xaaraanta u tallaaba dhe kuwa xadgudba xaaraanta u gudba u tallaaba all wuu ogyahay wadaruu ka taga daahira alithmi dembiga midkiisa muuqda ka taga wa baadinahu midkiisa qarsana ka taga ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbada alisma ina aladiina kuwa yagsibuuna alithma demba kasbada sayujuzawna waa loo jaazinaya bimaa shaygii kaanu way ahaadeen yaqtarifuuna kuwa kasbada waxay kasbadeen ay maxaan ay shaqaysteen oo dembiya ayaa loo jaazinaa yaa la idmaaraya dadka baktiga joogtay cunay oo banaystay walaa ta'kulu ha cunina mimaa shay ha ka cunina lam yudkar ismullah alla magaciisa aan lagu dul sheegin ha cunina alla magaciisa waxaan lagu dul sheegin oo bakti ha u dhowaanina waayahay walaa ta'kuluu mimaa lam yudkar ismullaahi calayhi wa inahu shaygaas isaga la fisqun waa daaca ka bixid wa ina shayaadiina shayaadiinta la yuuxuuna way u waxyoodaan ilaa awliyaa'ihim kuwa ayaga li xiriiro asxaabtooda ay u waxyoodaan maxay ka rabaan liyujaadiluukum inay idinla doodan darteeda ay u waxyoodaan wain adactumuuhum asxaabtii ayaa aada loo weerariyey waxaa aada loogula murmay shay wa alla dilay ayaad leedihiin xaaran waaye waxaad disheen ayaad leedihiin xalaal waaye waxaas wax jira ma aha dooda liyujaadiluukum taas waa wain adactumuuhum haddii warkooda aad yeeshaanood qaadataan inakum idinka lamushrikuuna kuwa alleh wax la wadaaji ayaa tihiin walaa ta'kuluu ha cunina mimaa shay lam yudkar aan lagu sheegin ismullah alla magaciisa aan lagu dul xusin calayhi dushiisa wa inahu shaygaas alla magaciisa aan lagu sheegin fisqun waa daaca ka bixid wa ina shayaadiina shayaadiinta la yuuxuuna way waxyoodaan way u sheegaan si hoos hay ugu sheegaan ilaa awliyaa'ihim ayaga asxaabtooday u sheegaan maxaa sababta liyujaadiluukum owliyadaas inay idinla doodaan way
أولياء لشيء وأولياء الشياطين وإن أدعتموا حدد دعبا المؤمنين هم الشياطين تاسور كوت حدد يشان إنكم إذنك لمشركون كوغالا آياتهين إذن آياتان هدو حي شيغيسا شيغ ألا مقعيس أن لو شيغين أسباب الله حرمي إني كوب كتخي وإنه لفسق وحانا الدليل لغو مرمو دقالدي مشركين تأيا وحده جرين وحب بختي ألا بري وانعنينا واحد بريسان إذن كاد دلي إذن كاد بري معنينا إذن شيغ بختي ألا مقعيس أن لو شيغين هاو دوانينا وحي قال أبرين هاو دوانينا لكن وحي ألا مقعيس لغو دل الشيغي عنا حدي قف إسلامي هاي ألا مقعيس أوسين شيغين وحي فاسقنا ميلاك سوق شماله لأنه أسق فسق معها إلهي غير كيسة لغما مقعاوين ما نلون يسانين حدي الغير كيسة لون يستو فسق وحان لها لمعن لهين سورة المائدة آيات السدحات وحلالها وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق شيء الله بري الغير كيسة وفسق وما ذبح على النصب وفسق إذن هدي الغير كيس لو بري وفسق لكن هدي الغير كيس أن لو برينين إسحان لو بريستو وحلال أما وحي الغير كيس لو بري سورة دان أو سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به إلى ذا فاسق نمو إنه يهي مؤغي الغير كيس لوغو شنقري كاسنا أسبابت لو حرمي وأهل لغير الله ذا الغير كيس لوما براين لكن كي برايا قال السجنة فسقي أسوك دحلايا لأنه markii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga reebay gaalad inuu ku tukado janaasadeeda suuratu tawba wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun yani kafirun asbaabta taxriimka keentay si kasta haddii dhinac kasta loo dayo وفسقاس ودي فسق لجوايو شيء وحلال أيون كل مركز ولا تأكلوها عنينا مما شيء كعنينا حقي لم يذكر أن له شيء اسم الله على مجيء عليهم تشيس أن له شيء وإنه أسقاس لا فسق وضعك بحد وإن الشياطين لا يوحون way waxyoonayaan ilaa awliyaa'ihim asxaabtooda u waxyoonayaan liyujaadiluukum inay idinla doodan daraaddeed maxay leeyihiin waxaad biraysan idinkaa biraysan ma rabno alle wuxuu bireeyaan cunayna oo ay ku jeedaan bakhtiga doodaas idinka daraaddiina ayaa loo soo abaabulay iska ilaaliya wain adactumuuhum warkoodaas haddaad yeeshaan mu'miniinay innakum idinka la mushrikuuna قال أهاتين أي أوكلا كان أو من قف كان أهادي ميتا مدنت أهادي فأحيناه أنوليني وجعلنا أن أيالني له أسغى نور أن أيالني يمشي أوكسعود به قفك يمشي أوكسعود به نورك في الناس تحت سوكم مرمريو كمن قف من لمذيهي مثله سفدي سب في ظلمات مقدر دحديس وياهي كسفيسي مقدر دحديس ليس وصنهين بخارج متك بيحكر منها إذا ما بك بحيبا كذلك سلاسيا زين الله قرحي الكافرين قال ذي أي الله قرحي سلاس ماشي أي الله قرحي كانوا يا هذا يعملون كو عمل فله نك مقدر دحفديا وشرك دحفديا
taasaab lu quruxsanba wakadhalika sidaasan jacalnaa u yeelnay fii kulli qaryatin wakadhalika sidaasan jacalnaa aan u yeelnay fii kulli qaryatin qarya kasta dhexdeeda akaabira mujrimiihaa dembiiliyaasheedu ku ugu waaweyn ayaan dhex yeelnay qarya kasta oon halaag la rabno maxaan u yeelaynaa liyamkuruu inay dhagraan fiihaa qaryada inay dhagraan oon u yeelnay wamaa yamkuruuna mana dhagrayaan ilaa bianfusihim nufuustooda ma ogiye wamaa yashcuruuna ma oga ayagana mithaal ahaan dadka maka deganaa dadka ugu waaweyna ayaa mujrimiin ahaa mujrimnimadoodii dadku dhan ay gaarsiiyeen idan qaryadii lala raba nidaamka soo kala kuwa waaweynaa la lumiyaa walciyaadu billah wa idaa waktigii jaa'atum ay u timaado aayatun aayad markii u timaado qaaluu waxay dhaheen lan nu'mina ma rumaynayno anaka xataa nuutaa ilaa nala siiyo inta nagala siinayo midla maashi oo kale uutiya la siiyey rusulullah rususha alle la siiyey naba waa loo waxyoodaa anakana waxayaan rabnaa inuu nagu soo degay leeyihiin wallaahu allana aclamu allih ogal badan waa xayثu makaanka yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa ilaan qof loo waxyooday risaala loo dhiibay mujrimiinta gaaladan miya istaahilan maya sayusiibu aladiina kuwii waxa asiibi doona ajramu dimbaaway sagaarun dulli ayaa asiibi doona cinda allah alla agtiis ahaaday igu cadaabun cadaab ayaa asiibi doona shadiidun daran bimaa kaanuu ahaanshahooda daraaddeeda iyo bimaa kaanuu ahaanshahooda maada ay masdariya bimaa kaanuu ahaanshahooda darteed yamkuruuna kuwa makri fala ay ahaadeen ilaahu al ula doono an yahdiyahu inuu hanuuni ula doono yashrax al waa waasiciyaa sadrahu laabtiisa waasiciyaa lilislaami islaamnimo u waasiciyaa islaamnimada ayuu qaadsiiyaa uu ku qanciyaa uu gelinsiiyaa waman qofkii yurid al uu rabo an yudilahu inuu lumay uu rabana yajcal al waa u yeelayaa sadrahu laabtiisa dayiqan cidhiidhi ayuu ka yeelayaa xarajan aaduu cidhiidhisan kaannama waab asagoo yascadu fuulaayo fi samaa'i samada fuulaayo oo kale ayaa laga dhigaa mayaa la dhihi kara samadan fuula jaranjaro la-aan maya jaranjaro samada gaartan maba jirtaba saas oo kalaa laga dhigaya qofkii ilaahay uu u diido hanuunka cirka fuul oo kale ka noqone ma gela idan diintaba ma soo dhexgelayaba kadaalika sidaasa yajcalu allaahu al u yeelaya arrijisa cadaabka cala aladiina kuwii dushooda laa yu'minuuna aan rumaynaynin ilaa hadday gaaloweyn cadaaba dushood la yeelay wa haada qur'aankan siraadu rabbika rabbiga jidkiisa wey mustaqiiman xaaluu toosan yahay qad xaqiiqa fasalnaa waan kala dhigdhignay al aayaati aayadiyaan kala dhigdhignay liqowmin qooman u kala dhigdhignay yadakaruuna waana qaata walahum waxay leeyihiin wa haada kan siraadu rabbika rabbiga jidkiisa waaye mustaqiiman xaaluu yahay mid toosan qad xaqiiqa fasalnaa waan kala dhigdhignay al aayaati aayadihan kala dhigdhignay liqowmin qooman u kala dhigdhignay yadakaruuna waana qaata allahu subxaanahu wa tacaala aclam